عندنا سيد عالم كلن قضبضها كلي أيضا مالمي وجود ميودن waxaa hadal hayn xoogan ay ka taagneyd diyaarad uu nin Soomaaliya leeyahay oo iyadu goorsii horeysay sheegtay in ay iska diiwaan gelisay dabcan hawada ama ay qaadatay shatiga duulimaadka iyo waliba lahaanshaha ee Soomaaliya oo tagtay Israa'iil. VOA-da ayaa markii ugu horeysay soo bandhigtay waraysi kooban oo ay ka qaaday milkiilaha shirkadaasi leedahay diyaaradaha Hala oo leeyahay magaciisa Ibrahim Noor Hilowli. Xaaji Ibrahim Noor Hilowli oo la hadlay markaas VOA ayaa waxa uu sheegay in diyaaradda tagtay Israa'iil uu isagu leeyahay isla markaana lagu kareystay ayuu yiri Ingrid ahaan oo diyaarad Ingrid ay dadku qaateen. wuxuuna intaas ku daray inuu ku soo wargeliyay duuliyaha diyaaradda in uu doonayo inuu diyaaradda u duuliyo dad gaarana ku qaado. diyaaradda ayaa si waxaa la sheegay inay dhowr meelood fadhiisatay isaga laftiisana taas uu qoray. diyaaradda markay ka baxday garoonka diyaaradda ee Jomo Kenyatta ayaa la sheegay inay tagtay Entebbe oo ah markaasi Uganda kadibna ay u sii duushay Masar iyo Urdun ka hor inta aysan tagin Israa'iil. laakiinse wuxuu sheegay in Israa'iil ay diyaaradda u tagtay inay shidaalka qaadato. markii ugu horeysay ayaa wariyaal u dhashay Israa'iil waxa ay sheegeen in markii koobaad taariikhda diyaarad Soomaaliya ka diiwaan gashan oo magaca Soomaali ku diiwaan gashan ama Soomaaliya laga leeyahay ay dabcan timid ay yiraahdeen Israa'iil taasoo ay ku tilmaameen taariikh cusub oo xirantay. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo barihii ugu dambeeyay oo dhan ay jireen hadallo ku saabsan waxa ay dhici kara haddii ay timaado in lagu daro Soomaaliya wadamada safafka ugu jira in Israa'iil heshiiyaan. balse ganacsadaha ayaa waxa uu sheegay in diyaaradiisa tagtay halkaasi ay ka diiwaan gashan tahay ayuu Kenya. diyaaradiisa ayuu ku tilmaamay in ay tahay 3 diyaaradood oo laba kamid ay ka diiwaan gashan yihiin gudaha Soomaaliya laakiin taasi ay Kenya ka diiwaan gashan tahay kuna doosho shati ay iska leedahay Kenya saadaradeedna ay u sahlantahay inay meel walba tagto. wuxuuna intaas ku daray in ay dood ka dhalatay xataa lacagtii lagu tagayay deegaanadaasi. isku soo wada duuduubo arrimahan oo dhan ayaa imaanaya iyadoo barihii ugu dambeeyay qir ay iskaga ahaa hadallo fara badan oo dhexmarayay baraha bulshada oo dadka qaarkood ay ku tilmaamayeen inay yihiin sax halka kuwa kalena ay ka doodayeen inay tahay gebi ahaanba been la